halo mucjisada ugu dambeysay ayaa dhacday maxaa yeelay aabbaha ayaa isoo wacay wuxuuna igu balameeyey guriga martida loogu talagalay arooskeena ayuu berita ka wada hadlaya ka wada macquul maahan aniga waan aamini lahay aabbe sidoo ugu ogolaadan haddaba waxaa labadeena waa damaashaadeena yaaqa iga daa aniga hadda ayaa masquul ka soo baxay kaali gurigaa kula joog wariyaa okay turukada aad isku qurxisaan gabdhiina mii sheegi kartaa inaan ogaadaan rabaa dumarka waxay isku qurxiyaan waa sir in la sheegan lama ogolo shaambada aad ku qubaystid waa noocee adiga tayada ka baxay adiga maxaad ku qubaysataa aniga maalintan ku batay ilaa iyo maanta jirkayga nerima shaamba ayaan ku qubaystaa u kaadi joog dhaqdhaqaaqin maxaa dhacay soo ma aragtid dhibicda biyaha aad ku qubaystay oo madaxaaga ka soo degaysa si fiican u daawo dhibicdaas biyo ah waxay soo dhex maraysaa labadaada indhood dhexdooda kadibna sankaagay soo dulmaray kadib si u soo socoto bishimahaaga ayay dhash ku dhehaysaa dhibicdaas biyahana ma istaagayso waxay soo mareen dhuuntaada quruxda badneed markay soo gudubto waxay soo dhex maraysaa wadnahaaga dhinaciisa si ay u soo socoto akhiiranka waxay ku soo dhammaynaysaa xundurtaada